الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. guddoonka labada aqal xildhibaanada labada aqal howlwadeenada marti sharafka guddiga madaxa bannaan iyo kan idinkoo mahadsan markuu xildhibaan hadlayo wax yar codkaan la maqlayno saxmad badan baa jirta xagga hadalka guddiga dastuurka meediyaha howlwadeenada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacd salaan kadib waxaan rabaa dhowr qodob oo ku wajahan dooda maalmahan socotay inaan soo jeediyo. qodobka labaad faqradiisa koowaad ee ka hadlayso islaamka waa diinta dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa la qabaa xildhibaanadii hore in lagu daro dalka iyo dadka. qodobka saddexaad ee ka hadlaya mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka faqradiisa koowaad waxay u qoran tahay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ilaalinayaa shariicada islaamka iyo maqaasideeda. waxaa su'aal mudan in shariicada iyo dastuurka yaa horeeya. shariicada horeysa dastuurka ma ilaalinayo shariicada waxay ilaalinaysaa dastuurka. meesha waxaa ka jira tanaaqud ama iska horimaad. marka waxaan soo jeedin lahay in lagu bedelo halkaasi in uusan khilaafin shariicada islaamka iyo maqaasideeda. walaashay senator Fortuna waxay sheegtay guddiga inay dagaal nagula jiraan. waxaana caddeyn u ah marka laga hadlayay xuquuqda haweenka waxay ku soo dareen qodobka ka hadlaya mabaadi'da asaasiga ah. mabaadi'da asaasiga waxay ka hadashaa wixii xaraam ah wixii xalaal ah Qur'aanka Kariimka sunnada maqaasideeda shariicada. laakiin haweenka xuquuqdooda cutubka labaad ayaa wuxuu ka hadlayaa xuquuqaadka waxyaabaha xuquuqaadka ku saabsan waxay ku jiraan cutubka labaad sida ilaalinta xaqa ilaalinta xogta xaqa racfaanka qaadashada xuquuqda haweenka. halkaas qodob ka mid ah qodobada xaqa ka hadlayo maxaa loogu dari waayay sababta mabaadi'da loogu soo raray in waxna loo ogoleyn markaasay horta caddahay. waxaan marka aad aan u adkeynayaa gabdhihii halkan soo istaagay iyo raggii ku taageerayba in qodobka ka hadlayo xuquuqda dumarka siday u codsadeen oo aan ugu gudbinay shalay guddiga inay noogu soo qoraan 30% ay ku caddaato meesha xuquuqda looga hadlayana loo geeyo. qodobka afraad faqradiisa saddexaad waxay ka hadlaysaa xeer kasta go'aan kasta ama tallaabo maamuleed kasta oo ka soo baxa heer kasta ee hay-adaha dowladda kana soo horjeeda dastuurka wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan waxaana burinaya awood u leh maxkamadda dastuuriga. waxaan ognahay mudanayaal iyo marwooyin xeerarka markana loo keenayo ugu dambeynta sharciyada ama xeerarka loo keenayo waxaa ku yaalo xeerkan wuxuu baabi'inayaa xeer walba oo asaga ka soo horjeedo. marka waxaa halkan aan ku xoojin lahaa qodobkaas aad u fiican yahay laakiin waxaan ku xoojin lahaa in lagu daro xeerarkan la wada baabi'inayo in la soo qaydo oo aan laga dhigin mid mudlaq ah oo la dhaho xeer walba oo asaga la mid ah ayuu baabi'inaya. laakiin xeer walba baabi'inaya dildo xeerar badan oo iska soo horjeedo wada baaba'aya halkaas ka soo bixi doono. marka qodobkan uu fiican yahay laakiin halkaas aan rabay inaan ku biiriyo. qodobka 7 ee ka hadlaya xuduudaha sidaan ognahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka maqan dhul nooga maqan Ethiopia iyo Kenya Soomaali galbeed iyo NFD. marka xuduudahan lagu soo qoray dastuurka aad uma caddo. waxaan marka soo jeedin lahay in xukuumadda hay-adaheeda fulinta iyo xukuumaddaba ay keenaan soo jeedin baarlamaanka la hor keeno
xuduudana cadeynayso si aan u ogaano xuduudaheena oo cadna aan dastuurka ugu qoranno. qodobka 8aad ee ka hadlaya jinsiyadaha faqradiisa afraad ee ah diidmada iyo laalista waa la tirtiray faqradaasi. waxaan soo jeedin lahaa faqrada in dib loo soo celiyo. xildhibaano badan oo halkan ka hadlayna aaday uga hadleen. ugu dambeyntii haddaan kusoo gabagabeeyo xaqa ay leedahay hooyada Soomaaliyeed iyo ilmaha ay dhashay oo ah in la siiyo jinsiyadda Soomaaliyeed oo aad loo soo celceliyay lagana tiray faqradaasi. waxaan aad u xoojinayaa in dib loogu soo celiyo sababta oo ah siduu xaq u leeyahay aabaha ay hooyadana xaq u leedahay, ilmaha ay dhashana xaq u leeyahay. waxaa naga maqan dad badan oo Soomaali ah, gabdho badan oo Soomaali ah oo rag kale guursaday oo aan xuquuq ku haysanin. adduunka hadda meel lagaga fakaro ma joogno ilmahani ma muslim ba ma gaal ba ma jinsiyadan ma qaadanaya meel lagaga fakaro ma joogno. dadka inta badan waxay ka yimaadeen qurbaha. tusaale aniga wadanka Ingiriiskan ilmo ku dhalay la iima fiirin way xijaabantahay way madowdahay islaam waaye la iima fiirinin laakiin ilmahayga sharciga si toos ah loo siiyay. marka wadankayga aniga aan ilmahayga iyo dadkayga aan u dhashay haday ilmahayga u diidaan xaq waxaan u maleynayaa qarniga aan hadda ku jirno inaysan arintaasi hadda suurtagal ahayn inay soconaynin. waxaan marka soo jeedin lahaa oo aad aan u adkeynayaa qodobkaas 8aad in sidii loogu soo celiyo oo ka hadlaya ilmaha hooyada Soomaaliyeed ay dhasho inuu helo jinsiyad Soomaali ah. waad mahadsantihiin. salaam calaykum. mahadsanid